أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. haddaan intaas ka soo gudbo waxaa marka u arkayaa waxyaaba akhtaadaan sheegnay ama caqabaada iyagii in la daaweeyo way xalku oo laga fogaado akhtaadii inxiraafaadka xala meesha laga sheekay oo ah quluwiga iyo xadgudubka waxa ka mid dad gaaraysiinta ka mid ah takfiirka waxana waa gaar lagu degdego ummad muslima oo aan xaq u lahayn inaad gaaraysiiso oo aadan ahayn adigu ciddii arrintaa inay ka fakeraan ama aadan ahayn oo aadan maxaakim islaamiga u ahayn oo aadan u ahayn culimmadii waaweyn oo maar raasikiina u ahayn inaad weliba ummadoo dhan inaad gaaraysiiso arrimaha noocaas oo kale ahi waa arrimaha wax qarribay soo ma garan in waxtaa ka agdhow inaad wasacdo ridda ka waa murtad qof islaam leeyahay xalay meesha waxaa laga sheekeeyey سيد علي مركي لو دلي سي لو دلي يا وحو اها يا ماشي لو غلي سو ما غران waxba ma ogeyn si wax ku soo maqan iyo wax lagu xukumay waxba ma ogeyn hadda ma ashbah leeyta bil baarixa waad arkaysaa qof aliyahay oo islaama oo masaajid ku soo socda oo lagu leeyahay masaajidka illigiisa ku dilay baa lagu dilay markuu baxayay markuu soo galeeyay markuu saada ku socday meel lagu xukumay iyo wax xukumay iyo meel warkaan ka yimi xog ma hayo soo ma garan ma wiil baa ku fakeray mani meel iska jooga baa go'aankaas isagoo soo jeediyo saa u fuliyey waxaad arkaysaa markaa arrimaha noocaas oo kale oo khatiirka ah in la saxo akhdaada noocaasa weeye dawadu xalku waa saas wixii jiray oo dhibaatada keenay in la saxo xalku waxa weeye dacwadu qoriga inay dhigto weeye xalku dacwadu qorigay qaaday sax kuma ahayn horena waa u sheegnay soo ma garan boosaas waxa jamaraan saas u hadalay si cadaana culimadana waa laga tala baxay arrintaas hadeerna ilaahay idankiis inay saas loo socdaan rajaynayaa waa inay madaxeena ka dhaadhacdo ummadda oo la takfiriyo la gaalaysiiyo iyo ummadda oo qori loo qaato la laayo dadkii muslimka ahaa xaggee ummadda ku dawey ummadda asalka muslim buu ahaa soo ma garan soomaaliya boqol muslim bay ahaayeen ninka ka soo dhaxbaxa oo maxkamad awood u leeyahay xukunto ama fatwa culamaa raasikiin ay ka soo baxdo arrintaas ma ogiye ummaddan waa muslim soo ma garan cid ka saari xay waa taa maqlayseenoo ilaahay nina islaamka cid uguma dhiibin soo ma garan marka masaladaas in la saxo bay waxay noqonaysaa xalkii waxaa ka mid ah afkaarta tan gaalaysiinta iyo muslimiinta qoriga loo qaato iyo la laayo waxaa la yidhaahdaa firaq waa wax hadda ka hor soo maray saaxaa dhegaysatay waa dhegaysatay xalay wax jiri jiray bay wax cusub maaha soo ma garan marka waxyaabihii noocaas ahaa oo jiri jiray oo quluwiga ahaa oo firaqa ahaa oo muslimka la laayo ahaa in ummadda la baro oo da'yarta la baro oo macnahaas la ogaado xuluushay ka mid tahay oo maanta waa loo baahan yahay in waxaa kala fahmo nacam waxaa ka mid ah say ila muuqato inxiraafaadka noocaas oo kale oo dhibaatada keenay in laga yeesho mawaaqif laazima mawaaqif daruuriya oo cad goob cad in la iska taago culimmada ummadda kulligood oo akhtaadaas in ummadda loo sheego mawqif la iska taago waa lagama maarmaan haddii kale xal la heli maayo say aniga ila tahay waxaa kaloo ka mid ah say ila muuqato in la sameeyo siyaaqa usluubi dacwa siyaaqatan jadiida usluubkii dacwada loo bandhigayey in la cusboonaysiiyo oo hadday dad yaryar iyo dad khaasa iyo niman la yidhaahdo wadaado iyo hadday saas ahayd waxaan u arkayaa dacwada ummadoo dhan in loo soo bandhigo dhammaantood soo ma garan odayaasha iyo maxaan ku idhaahdaa
madaxda ru'asaa'ul cashaa'ir maxaan ku idhaahdaa siyaasiyiinta maamulada waxaas oo dhan waxaan leeyahay dacwada in loo bandhigo ay gaarto oo nasiixo iyo si fiican ku gaarto waxay tahay waxa wax sixi kara inay tahay sooma hore iyagoo aan cugdada kala qabin la isfahmo oo aan laga baqayn oo qorigu sitaa ama wada inqilaabaya aan la lahayn in dadkii maaragtay waxaynu ognahay nabiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi xataa nimankii la ohan jiray mushrikiinta oo quraysh oo reer maka ee qaswatulxudaybiya oo nabiyullaahi maxamed oo muxrima iyo asxaabtiisii loo diiday inay kacbada tawaafaan way leeyihiin dagaal uma soconno oo dooni mayno dagaal waxaan doonaynaa kacbada inaan tawaafno oo keliya ma noo saamaxaysaan sooma garan waa tii loo diiday sooma ad garan nebigu wuxuu la galay waa ogolaaday hudna iyo maxaanku heshiis iyo inuu ka noqdo sanadka kan oo maaragtay lagu xalaaloobo bannaanka xaramka dabadiisa oo hawlo badan oo aad maqasheen ayaa nabiyullaahi oo u muuqanaysaa inay ummadda ku tahay islaamka ah dulmi iyo xadgudub inay ku tahay laakiin nabiyullahi maxamed waa ku adkaystay isagoo og inay maslaxadii dacwada meesha ku jirto sooma garan 10 sanona in dagaalka la joojiyo 10 sano oo dadku isdhex maro maxay noqotay markii dambe in dadkiiba soo islaamo si degdega oo dagaalkii la joojiyey iyo hudnadii waa macal mushrikiin oo laga ogolaaday maanta inaan ka noqdo maxaan ku idhaahdaa xaramka baa waxaa ka soo baxday oo dacwadii dadkii ay isdhex mareen oo dhegaysteen iyagoo aan kala baqayn madiine la tegey xagga la tegey la sheekaystay yaa baa dadkii nimankii u waaweynaa oo maaragtay mushrikiintaa markaas islaameen si degdega maxaad marka u malaynaysaa mushrikiin bay ahayd haddaan saas u isticmaalno ummadda soomaaliyada muslimiinta ah waynu soo dhoweyno oo xabadda joojinno oo ayan naga biqin oo sheekaysanno oo xiwaar meeshaa ka yimaado oo la wada hadlo oo waxaa wadda aan ku soo dhoweyno sooma garan oo ay ka qayb qaataan aniga waxay in la helayo in badan haddii xataa dadka dhan noqon in badan odayaasha ka mid ah salaadiinta ka mid ah siyaasiyiinta ka mid ah baa waxay u diyaargaroobayaan inay dacwadan hoggaanka u qabtaan oo ay la qabtaan dadkii waday iyo culimmadii ay la qabtaan soo ma jeedid waxaa laga yaabaa maamulada laftooda inay maaragtay arrintaa ku soo dhowaadaan bal horta waxa kan xaajiska noo dhexeeya oo khawfka ah oo kala baqa ah oo ninkan waa kugu maqan yahay ah soo ma garan oo meeshuu kaa dilandillaynayaa ah xaajiskaas inuu meesha ka baxo waxay ka mid tahay oo islaamka iyo raxmadiisa wanaaggiisa lagu soo dhoweeyo waxay ka mid tahay xuluusha bay maanta ka mid tahay oo laga maarmaanka ah inuu ku badinmayo waxaa ka mid laga maarmaana mafhuumka jihaadka in la saxo mafhuumka jihaadka sida hadda dadka loogu bandhigay ama da'yarta loogu bandhigay in masaladaas la saxo oo culimmadu ay daraasaad jihaadka fiqhigiisa iyo siyaasad buu leeyahay siyaasaadka waxaa ka mid marka qaarkood in laba joojiyo saan haddeer nabiyullahi maxamed uga sheekaynayno 10 sano ayuu heshiis ku galay in la joojiyo ee jihaadka hudna laakiin faa'iido degdegaa timido markii meeshii laga laabtay asxaabta qaarkood ay yaabanaayeen yaa ilaahay wuxuu innaa fataxnaa laka fatxan mubiina saasay noqotay sanatayn baa maka ay gacanta soo gashay ma ujeedaa marka mafhuumka jihaadka fiquljihaad in la barto siyaasatljihaad in la barto sababa garan anwaaculjihaad in la barto maalinba waxbaa kula gudboone mar kasta inaad qori inta qaadato weliba dadka dhexdiisa waxyaabo kale aad qaban karto jihaadaa jira jihaadu nafsi jihaadu shaytaan wax badan aad qaban karto la jihaadi karto ayaa jira dacwadaa jihaada addacwa hiya aljihaad sababa garan waxa weeye waxa ugu horeeya waa jihaad socda wey oo aad sida xikmad aad ku wadayso udcu ilaa rabbika bilxikma walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan sababa garan sidaas baan u arkayaa inay tahay maanta xalkii uu ku iman karo waxaan u arkayaa xalka oo laga maarmaana in la daraaseeyo maqaasid ashariica alislaamiya waa wax weyn ujeeddada ay leedahay shareecada islaamku ujeedda leedahay maqaasid ashariica baa la yidhahdaa culimmadu waa xadideen waa daraaseeyeen islaamka oo dhan guud ahaan markii ay u akhriyeen waxay soo saareen maqaasid shariica islaamiya waxaa ka mid ah
diinta in la badbaadiyo waxaa ka mid ah nafta muslimiinta in la badbaadiyo waxaa ka mid ah maalka in la badbaadiyo waxaa ka mid ah dadka cirdigooda iyo sharaftooda aan meel looga dhicin in la badbaadiyo ilaa aakhiri soo ma garan dadka markaa wixii ka dhexeen ha ka dhexeene ha qaxeen oo meel daran ha ka dhexeen hadday rabaane jannay gelayaane dagaal bay ku jiraane sax maaha macnahaas jaadku wuxuu leeyahay maraaxil buu leeyahay wuxuu leeyahay maqaasid buu leeyahay wuxuu leeyahay soomaad ogey nabiyullaahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu marka qaarkood aanba loo ogolay inuu qori qaado soo ma garan ama dagaalba galo soo ma garan oo laleeyahay maaragtay sabir oo salaada maaragtay ku adkaysta maraaxil noocaas oo kalea jaadka marka jeetiisa maraaxil bay soo martay xataa nebi maxamed oo jooga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bay maraaxil soo martay mar mamnuucuu yahay mar loo ogolaado laleeyahay udla liladiina yuqaat waa loo ogolaaday mar laleeyahay ciddii maaragtay insoo weerarta la dagaalama mar laleeyahay maraaxishaasoo dhan culimmadu waxay yidhaahdeen waa furan tahay oo wax baaba'ay maahe mid kasta markay munaasabka tahay ayaa loo noqonaya waxaasoo dhami waa markii gaalo lala jihaadayo oo dawlad la hayo oo dadku midaysanya meel u jeedo ee macnu maaha dadka dhexdiisa marka waxaa kale oo aan isleeyahay in dacwadii la tanshiidiyo oo la tandiimiyo waxaan tilmaamayaa in jiilka soo koraya waxay u baahan yihiin tarbiya jaadda tarbiya xoog badan in la iska xil saaro dhalinyarada da'yarta oo ay hadda dhacday kuwaa u sheekaynaya sheeko yar baa lagu shubayaa maskaxdii waxaad moodaa wixii ilaahay u sameeyey waxaad moodaa inta laga bixiyey wax kale lagu rakibay kii waxaad arkaysaa wuxuu ku soo gelayaa isagooba mawaalan yahay mase maaqaan aan waxba ixtiraamayn waalid ma ogola culimo waaweyn ma ogola ummadda xaqeeda ma ogola intaanoo kale wuxuu diyaar u yahay inuu isku qarxiyo masjidkaasi ummaddaa tukatay oo muslimiinta ah wuxuu ka raadinayaa isaguna inuu qarxo jannana saa ku galo intaasa qarxiyo da'yartu waxay u baahan yihin in la badbaadiyo tarbiya jaadda inay helaan xilkaasa wuxuu saaran yahay nacam culimaduu saaran yahay waadiintuu saaran yahay si gaar ahaaneed macallimiintuu saaran yahay macalimiinta dugsiyada macalimiinta iskoolka waa inay risaala xambaaraan wey maaha inuu macnuhu noqdo inay noqdaan niman mudarisiin oo sidii nin ama xisaab dhigayo ama ingiriis dhigayo u soo xaadiray wax la yidhaahdo maxaan ku ihahdaa mushaar usoo xaadiray xisadii waa gutay macnahaasoo kale looma baahna macalimiintu risaala waa inay xambaarsan yihiin ummaddan waa inay badbaadiyaan jiilkan waa inay badbaadiyaan waa inay wax u sheegaan da'yarta si gaar ahaaneed waxaa leeyahay marxalada mutawasita hadda dadka sidaa loo galo oo adduunka qana waxa weeye dhowr iyo 10 jir maa duuna 20 waaye 4 iyo 10 8 iyo 10 7 iyo 10 2 iyo 10 dadka noocaas oo kale ah dadkaas waa in loo soo jeedsado oo wax laga qabto culimada xil baa ka saaran waadiinta xil baa ka saaran maamulada xil baa in la isu kaashado weeye ummaddaasi waxa weeye waa rijaalu qad waa dadkii ummadda wuxuu qaban lahaa shabaabka dhallinyaradan u jeeda waxaa leeyahay waantooma oo caqli yeesha oo caqli waa leedahay diinta fahma oo ogaada waxaasoo kale haddaad ku dhaqataan ama waxaas aad maaragtay ay idin maraan janno ku geli maysaa khayrna arki maysaad saad isu gubtay baad aakhirana u gubanaysaa maxaa yeelay waa ma xujo haysataa inaad intaasoo isku qarxiso ama qof saad usoo socda inaad disho ama ummadda ina xabad inta oo hooyooyinku qaxaan oo meesha lagu kala tago oo balaaya ka dhacdo oo markaa gaalo ka faa'iidaysato soo ma garan fawdadaas in gaalo ka faa'iidaysato ummaddu waa in la miisaamaa masaalixda iyo mafaasidda mararka qaarkood waxaad arkaysaa dhibaatooyin baa jira waxaan sharciga ku fiicnayn baa jira mafaasid baa jira ma bedeli kartaa haddaa istiraahdo bedel maxaa ka dhacaya bedel haddaa istiraahdo waxaa laga yaabaa awal waxbaa dhaqnaa oo waa la tukanayey waxbaa la baranayey oo waa la roonaa meeshaan baa lagu galgashaa oo lagu kala cararaa oo dhiigu daataa oo bel soo gashaa oo muryaani ka talisaa sharcigu waxa weeye intii hore oo munkarka ahayd oo lagu dhaqnaa wax ka dhabadan inaadan keenin haddaadan waxba ka qaban karinoo wax ka khayroon keeni karin oo dhib ay ka dhacayso waa inaad taxamushaa kaas yar waxaa la yidhahdaa ixtimaalu akhafi dararayn soo ma garan fiqigaas waa inuu joogaa
oo culimada looga dameeyaa munkar baan suurinaya oo waxbaan tuuraya waxaasi ma banaano waa tuuraya oo ay ka dhalato lama arag iyo lama maqal oo wixii jeel la baabi'iyo oo la kala cararo oo masaajid lagu tukan waayo oo diin la baran waayo oo balaayo dhacdo oo la qaxo oo la hogo la bo'o ilaahay ugu dhawaanayso ogow intaas aad biisaba taxamulaysa marka waxay u baahan yihiin fiqhi bay u baahan yihiin mafaasid iyo masaalix in la miisaamay u baahan yihiin culimay u baahan yihiin calaa sabiil mithaal tusaale yar haddaan ku siiyo haddaad maanta waxaa meeshaan qaad baa ka socda qaadkuna waxa weeye waxyaabaha dhibka badan ugu haya oo foosha xun dhaqaalaheenna akhlaaqdeenna jirta buu dhib ku yahay see loo daaweeyaa ha waxaa noo furan inaan hadalnaa waa noo furantahay in badan waana hadalnay inaan isku dayno laakiin hadday koox dhalinyaraha intay yaacaan ay waxaba ay xabad kala daaraan oo cagta mariyaan maxaa ka dhalaya maranaysa maxaa ka dhalanaya qaadkan fasaad ka weyn 10 jeer 20 jeer baa ka dhalanaya markaasoo kale ma saxayd da'yartu hawaana qaateen da'yartu yaan loogu sheekeen oo yay khayr ka doonin inay ummadda gubaan muslimiinta inay laayaan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أرنتا نوعاas oo kale waana lagu degdegin waa inaan kuwa iyaga laga xoolaha ka waaweyn ama dan gaar leh ama iyagoo laftu inxiraaf waxa ka u sameynaya intay wax ku cabeeyaan waana yawaarin war waxa tii rijaal qad umada idin dhowraysa wax barta oo diinta barta oo ilaahay caabuda oo cilmi badan barta oo kawaadir wax qaban karta bari umada bari saadame anagoo yaashay waa noo jeedaan waa si socona idinkaas waxaa rabaa caqli iyo tarbiyo iyo odayaashu waxay ka roon inaad ka faa'iideysataan iyo inaad sidaas oo kale wax ku qabataan baa idinka doonaya midda kale waxa weeye simaarta lama degdegsado intaasaan dacwo soo wadnay intaasaan saas lahay wax ma hayno waxbaan haynaayo innagu haatan waa yaab هذا الشيخ واني ستين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هل قف حتى وحشكته ودين تصور راعه وعكس انتصك خيرون فوائد واسك صعدتها سوى جديد لكن كور هذه واجبك وصارني وعويه إن الدعوة السيئة وقودته أجر كاكواليات هل قف هدوك صور راعي وايو قالوا حما ألبين هاي استجابة إلهي بالي مع نبو نوشيك صلوات الله السلام عليه قيامة وحي ماني النبي دن ولا صدري ومعه الرهط انت والنبي إلهي مثلا نور قفبال سعودة وهكذا وحي ماني نبي دن إلهي صدري أو وحيودي أو النبي أو آن هالقف وضن هالقف أسري أجيبين باي ماني واجب تسوى وشيسي واجب كيسي واجب أجرك واليه لكن دار القلب إلى قشوه الله ما يستطيع ما شقد هذا ما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حيسكن إبي أنا أسوى أيام وأنا أركي الناس ثمارت عيد الكبر وأنا أكون امتحاني عاوة أنت هالكان لك يسريسة محاي نور لك يسرية يا حب السيام ماشي كوهية وحكوينا الرياضين إنا وامحي أنت أسوانا تربينا أو توجيهنا أو طريقة ما يسكون صحنا وهي ترتيب السعودان ومدى الدين تقارسيان والنسيحيان وأنا أركي wax kastaba way imanayaan markaas ilaahay baa keenay soo ma garan taasna waa in aad iyo aad waa in la degdegsan waxa kale loo baahan yahay sabr iyo dulqaad iyo taxammul sabrku waxa weeye haddaad dacwo ku jirto wax badan baa kugu imanaya marka qaarkood waxaad ka xanaaqdaa kugu imanaya waxaad jeclayn munkar baad arkaysaa waxyaabaha noocan laga yaabo marka qaarkood inaad waxba ka qaban karin waa inaadan waaran waa inaad sabirtaa oo waxa weeye haddaad tahay maxaa wax kale u dhacayaan nin sabir xun baa tahay oo waxba qaban karin adna waa waalanaysaa dadka waa dhibaysaa waa inaad leedahay sabir iyo dulqaad ku adkayso ilaahay xakiima baa waxaan ka dambeeya soo ma garan waxbaa kula gudboone waxaa kula gudboon aad qaban karto qabo cid baa ka ogolo wax kaa qaadanaysa kelimada adigu dheh sawaabka ah saasaa lagaa doonaya soo ma garan waxaan kaloo aad idan ogaanaysaa awooddaada waxaadan ahayn adigu maba lagu saarinba maxaa waxaan saa noqon waayey oo waxbaa wareerinaya war awooddaada maaha ilaah baa dadkaan iyo adduunkaan leeyahay iyo aakhiraba adiga awoodda laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha soo ma garan waxay leedahay istitaaca waxaad qaban karto qabo marxalada ammaanta taagan tahay waxaa kugu dhib yar waxaan filayaa inaan waqti xoogaa aan ku xadgudbay marka laga yaabo inay munaasab tahay inahaas aan ku soo gaabiyo
intaasaan nagu soo daynayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون